shirkan jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ay ku qabteen qaar ka mid ah isimada iyo garaadada dhaqanka ka soo jeeda gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari ee Puntland waxay kaga waramayeen aragtida ay ka qabaan shir la sheegay in dalka Djibouti ay ku yeelan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. afayeenka isimada dhaqanka Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa ugu horeyn shirkan ka hadlay waxaana uu ka waramay aragtida shirka Djibouti isagoo sheegay in shirkaasi lagu soo beegay xilli ay taagan tahay xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland sida uu garaadka hadalka u dhigay. aanu dul qaadanay inta aan bini'aadam dul qaadan karin aanu dul qaadanay waxay dhashay dhulkayagii inta la yiraahdo waa la isku haystaa waa laga wada hadlayaa. Djibouti baa la marinayaa oo Switzerland baa la geynayaa oo dushayada lagu socday la mariyay oo annagu oo inta bini'aadam leeyahay leh ismaanu leenahay aqoonyahan baanu leenahay guurti baanu leenahay bad iyo beri iyo buur tilmaantooda sida dalkaasi yahay meel Soomaaliya leh aan jirin ayaan deganahay. dushayada inta lagu socdo Djibouti baa lagu faqayaa iyo Switzerland baa halka lagu samaynayaa iyo halkana keer iyo waxaan mudnayn waaye. sidoo kale afayeenka isimada Puntland wuxuu sheegay in arinta aayaha gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari ee Puntland ay kaga tashan doonaan shir ay isimada dhaqanka isugu imaan doonaan horaanta bisha soo socota. danaha iyaga annaga ayaa ka tashanayna shirka aanu hadeer halkaas xaafada aanu ku hayno waanu qaadaynaa waxaanu geynaynaa wadankii baanu geynaynaa isimadayadii kale iyo guurtidii iyo khiyaartayadii iyo aqoonyahankayadii meeshaasaanu isugu tegaynaa taladayada halkaasaanu dhigaynaa si wixii aanu samayn lahayn. Islaan Xuseen Xaaji Cabdisalaan Dhiif oo ka mid ah isimada dhaqanka ee Puntland ayaa dhankiisa baaq u diray xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha wasiirada ee ka soo jeeda deegaanadaasi isagoo sheegay in arintaasi ay il gaar ah u yeeshaan. waxaan halka ku boorinayaa xildhibaanada Puntland iyo kuwa federaalka oo xukuumadda ku jira labaduba oo ka mid ah waanu salaameynaa inay mowqifka u dhug leeyihiin oo dadka ay metelaan taladooda ka warhayaan mowqifkiisana iyo ay taliyaan baa loo baahan yahay oo aanu sidaas ay nagu metelaan waana ku raacsanahay dadka dibadda jiro jaaliyadahana inay ummadda ka warhayaan oo dalkooda de wixii ay qabaan la wadaagaan sidaas aan qabnaa iyagana kula talinaynaa waa salaameynaa saxaafadda waxaan leenahay dhulkayga taladiisa annagaa leh muuse biixi iyo kitinka la sheegayay iyo mid kalena kama tali way dowladda Soomaaliya inay Soomaaliya isu ururiso oo wada hadal la samayso dadkeeda iyada matashay waan ogolahay laakiin mustawaheeda iyo meel sida ugu haboon inay ula hadasho ma rabna inay qoys kala hadasho ama qof kala hadasho ummada iska dhan masiirkooda taana waan uga digaynaa. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.